Haweeney booliis ah oo codsatay in ashahaatinka loo qabto si ay u islaamto ama diinta Islaamka ay u qaadato. Ashhadu an laa ilaaha illallah. Si aan u gudagalno muuqaalkan, walaal like sar aragtidaada ka dhiiba sheer gare oo nagu soo bir si saaxiibo badan u gaaro muuqaalkan adna aad u rukumato muuqaalada maalinlaha ah. Mahadsanid in badan. Haweeney u dhalatay dalka Koonfur Afrika isla markaana ka tirsan ciidamada booliiska ee dalkaasi Koonfur Afrika ayaa waxay u timid isla markaana ka codsatay haween Muslim ah iyo sidoo kale bulsho halkaasi ku sugneed in ashahaatinka ay u qabtaan oo ay doonayso in ay islaamto, isla markaana sheegtay in ay ogaatay in diinta keliya ee saxda ah ee dunida ka jirta in ay tahay diinta Islaamka. Waxaana soo dhaweeyay isla markaana arrinkaasi ku farxay bulshadii muslimiinta ahayd ee halkaasi ka agdhoweed, waxayna ku soo dhaweeyeen diinteena suuban ee Islaamka, isla markaana u sheegeen in diinta saxda ah ee dunida ka jirta inay tahay diinta Islaamka, kuna dheganaato oo aysan dib uga noqonin ay kula taliyeen. Kadib soo dhaweyn, bogaadin iyo la talin, waxa ay haweeneyda booliiska ah ashahaatinka u qabtay mid ka mid ah gabdhaha muslimaadka ah ee goobta joogay, waxaana markaa ashahaatinka loo qabtay goobta isqabsaday Allahu Akbar, Alxamdulillaah iyo erayo kale oo markaasi ay Ilaahay ugu mahad celinayeen, sidoo kalena haweeneydaasi ay ku dhiirigelinayeen. Waxaana haweeneyda booliiska ah loo ballan qaaday diinta Islaamka qaadatay in si fiican loo bari doono diinta Islaamka, loo baahan yahayna in ay ku xirnaato bulshooyinka Muslimka ah iyo sidoo kale masaajidda si ay wax badan uga fahamto una barato diinteena suuban ee Islaamka. Inkastoo haweeneydan ay ciidan tahay, haddana waxaa loo sheegay in xilliyada ay jaaniska leedahay ay timaado masaajidda si ay u xoojiso barashada diinta Islaamka, isla markaana u kala barato waxa ka reeban, waxa la faray iyo sidoo kale waxa u bannaan. Diinta Islaamka ayaa sanadahan dambe daraasado la sameeyay waxaa la sheegay in ay tahay diinta ugu qaadashada badan caalamka, oo dadka ugu badan sanad waliba ay qaataan diinta Islaamka iyagoo ka baxaya diimaha kale ee aan jirin. Walaal like sar muuqaalkan haddii aadan horey u saarin, waxaan kaa codsanaynaa in aad follow dhahdo page-kan oo aad nagu soo biirto si muuqaalada maalinlaha ah aad u rukumatid. Mahadsanid in badan. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.